hooyada Soomaaliyeed weligeedba waxay lafdhabar u ahayd dhismaha guusha qoyska, diyaarinta mustaqbalka wiilkeeda aan helin qarannimo sal fadhida leh iyo adeeg dawladeed oo dhammaystiran. dalkeenna maanta taas waxaa u sii dheer duruufaha amniga. hooyadii Soomaaliyeed ee qiimaha badnayd ayuu cadowgu dooxayaa. anigoo masaakiin oo waxaan galabsaday aysan jirin iyo ummadda ila midka oo maanta iga hoosayso taa maxay ahayd ugu garaaba ha ugu garaabinina qabiilkaaga ha ugu garaabinina adaa dhalay ha ugu garaabinina uu kula dhashay soo qabo midka dadka laynayo. al-shabaab kama xishoodaan waalidka uma naxaan waana necab yihiin waanadooda, taas oo wax badan ka fog islaamnimada, dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo kan bini'aadanimada intaba. dhagarqabo kasta oo shabaab ah waxaa dhashay oo dhabteeda uu ku barbaaray hooyo, balse waxaa hubaal ah in hooyada naxariista badan ee Soomaaliyeed aysan u doorin noloshan halaagga ah. hooyooyinka Soomaaliyeed weligood waxay ahaayeen lafdhabarta halganka Soomaalida, maantana waxay door guulaystay ku leeyihiin dagaalka lagu soo afjarayo sharta 15 sano jirsatay ee ilmaha naarta. halkaan eeg waa hoggaanka hooyooyinka Soomaaliyeed oo samaynaya sahayda soo majeestayaasha qaranka ee duurka fog ku baacsanaya sharwadayaasha sharciga hareer maray. meesha tagaysi waxbaan ka tagaa garabkiina taagana furunta daa'igaysi furuntan tagaa cidaan wax cabsaya malaha cid aan uga cabsayno mala ilaah mooyaane aadana ka cabsan. hooyo waa tan ugu naxariista badan aadanaha, xurmad aan la xisaabi karin ayuu siiyey rabbigeen, balse shabaabku taas ma xeeriyaan oo waxay ugu jecel yihiin inay iyada dooxaan oo isku daraan dhiigga birmigeydada. Soomaaliya hadda waxay soo ceshanaysaa sarreynteeda samaanta si looga sariigto wixii silac soo maray sooyaalkeenna. waxaa loo halgamayaa dowladnimo hana qaada. liibaan lagu cadda Radio Muqdisho.